السلام عليكم. halkan waa cilmi baaris. maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad muhiim u ah kaasoo dadka qaar ay la dhibaataysan yihiin. waana inaadan dhihi karin ereyga maya. maxaad u dhihi laadahay maya wixii aad diidan tahay? waa mowduucayna maanta. maxay tahay sababta dadka ugu madaxa adag uguna xanaaqa badan ay u yihiin kuwa ugu taageerada badan adduunka, sidoo kalena ah kuwa inta badan laga dambeeyo dhanka talada iyo ka fikir qaadashada ra'yiga ay soo jeediyaan? hal mar inta aanan ka jawaabin su'aashan, aan taariikhda dib ugu laabanno si aan u fahanno jiritaanka sheekada ah in dadka ugu xanaaqa iyo carada badan ay yihiin kuwa inta badan iyagu wax hogaamiya. haddii aad fiiriso taariikhda boqorradii gaalada ahayd sida roomaankii hore, faris, hogaamiyaashii tataarka iyo sidoo kale xitaa qaar ka mid ah kuwii soo maamulayay dowladihii islaamka, inta badan waxaan maqalnaa ama magacyadoodana soo gaaraan waa kuwii ugu digtaatirsanaa. kalitaliyaashii xukunka iyo go'aan qaadashadu gacantooda keliya ku jirtay, aanay ogoleen cid kale inay wax ka dhahdo ama aragti ka dhiibato. dabcan kama hadlayno hogaamiyaashii muslimiinta ee wanaagsanaa ee maamulkooda ku dhisnaa kitaabka iyo sunnada iyo sidoo kale aragtida muslimiintu ay soo jeediyaan. laakiin lama dafiri karo sidoo kale inay jireen kuwa xadgudbay intii ay xukunka u hayeen dowladihii islaamka. marka laga hadlayo hogaamiyaashii caalamka soo maray, mar kasta waxaan maqalnaa magacyada kuwii ugu arxanka daraa iyo sidoo kale buunbuuninta maamulkoodii ku dhisnaa qasabka iyo jajubka shacabka. tolow maxaan u maqli la'nahay magacyada hogaamiyaashii shacabka u turi jiray, xukunkooduna ahaa mid fudud oo lagu hoos noolaan karo, layin ah, sidoo kalena ahaa mid ummadda ka dhexeeya. waxaa yar inaad aragto taariikhda hogaamiyaashii xukunka jilicsanaa, halka mar kasta aad maqasho ka sheekaynta kuwii dadka kadeeday, iyadoo buug kasta lagu qorayo hebel aad ayuu u fiicnaa sababtoo ah dadka ayuu kabaha la dulmari jiray. kasoo tag hogaamiyaal iyo madax, aan fiirino nolol maalmeedka caadiga ee dadka. inta badan bulshada waxaa hogaamiya kuwa ugu qaylada iyo buuqa badan, iyadoon xitaa la dhihinna hogaami. dadkuna waxay u raacaan sida inuu yihiin addoommo uu isagu leeyahay, iyagoo ku qasban inay daba socdaan mar walba, sidoo kalena qaataan wax walba u soo jeediyo, weliba si indhala'aan ah, iyagoon u fiirinayn sax miyaa mise khalad. dadku inta badan waxay jecel yihiin qofka amra mar walba, qasba, hadba meel fikirkooda u jeediya. waxayna u arkaan qofka awood badan, kana sarreeyo darajooyin xagga nolosha ah, xitaa isagoon qofkaasi wadan wax awood dheeraad ah oo qofka kale ku qasbi kara inuu u hoggaansamo. haddana mar walba waxaa dhacda in loo rukuuco qofkaasi qalafsan ee aan cidna u naxaynin, halka dadku inta badan ay ka fogaadaan dadka u naxariista, sidoo kalena ku fiiriya in naxariis leh, iyagoo inta badan u arka qof daciif ah oo aan cagab badan ku taagnayn, sidoo kalena aan la isku halayn karin, hadalna aan laga qaadan karin. waxaan hubaa inay mar uun ku soo martay sidan oo kale, inuu qof ku imaado kadibna ku dhaho hebelow waxaas iyo waxaas ii samee adoo mahadsan, kadibna aad ku dhahdo may ma samayn karo, adigoo isle qofkan hadalkiisu awood ma lahan, si jilicsan ayuu ku dhahay, sidaas darteed waa diidi kartaa hadalkiisa, micno badanna kuma fadhiyo, adigoo xitaa awooda inaad u samayso waxa uu kaa dalbaday. laakiin saacado ama maalmo kadib ma kuu imaaday qof kale oo ka mid ah kuwa xoogaa laga boqo wejigooda ee aadan iska caabi karin ama aadan maya dhihi karin, kadibna ma kugu dhahay waxaas iyo waxaa samey, kadibna adigoo qosol gariiraya ma dhahday haye waa kuu samaynayaa, weliba isla shaygii aad ka diiday qofkii hore mid la mid ah. haddaba taas ayaa ah xaqiiqada dhabta ee raqiisnimada, inaad ka baqdo dadka wejiyaashooda, inaad ku socoto qof ra'yigiis isagoo ku hogaaminayo meesha uu rabo, sidoo kalena aad ku raacayso sax iyo qalad wixii uu ku amro. haddaba maxaa keenaya inuu qofku daba ordo kii dili lahaa halka uu diidayo kii daryeeli lahaa? inkasta oo dabciga bini'aadamku kala duwan yahay, haddana laba qodob midkood ayaa keeni karta in qofku xarig ugu jiro qof kale isagoon is ogeyn. qodobka koowaad ayaa ah inuu qofku diidan yahay qofkan kale,
ee awoodda ku haysto meel kastana ka dhibaateeyey laakiin uu is leeyahay ha ka xanaajin si uusan kugu xanaaqina u samee wax walba uu rabo taasoo ugu dambayn ku ridda god ka samaysan dulli iyo ihaano taasoo ugu dambaynta u ka shallaayo waa qof inta badan ku fikira inuu ka baxo dhibkan haysta ee addoonnimada ah laakiin mar walba waxaa ka hor imaanaya kelimadda ah ha ka xanaajin ee iska dhaaf qofkan wejigiisa kama hor imaan kartid waana midda ugu daran ee haysta qofkan aadka u dhibaataysan kuna dhibaataysan inuusan dhihi karin ereyga maya qodobka labaad ayaa ah qof isagu raba gumaysi inuu ku jiro oo ma waxaa jira qof raba in la gumaysto isagoo addoon u noqonaya qof kale oo isaga la mid ah runtii dunida waxaa jira dad aad u fara badan oo fikirkoodu aan qoto dheerayn laguna tiriyo dadka mangaabta ah ee aan talada wax ku lahayn waa dad iska raba mar walba inay noqdaan lahaystayaal aan iyagu naftooda maamuli karin laakiin raba mar walba wax loo meeriyo kadibna waxay ku shaqeeyaan shidaal qof kale ku shubay waa dadka naftooda xakamaha goosatay ee aan ismaamuli karin kama hadlayno meeshan qof cajis ah ama naafa ah ee jirka ka dhibaataysan laakiin waa dadka maskaxdooda daciiftay ee aan wax fikrada lahayn taasoo noloshooda ku maarayaan dadka isaga qaldameen of iyo onta waa dadka ugu raqaysa caalamka sidoo kalena aan lahayn wax aragti ah oo noloshooda ku aadan kaliya raba inay daba ordaan hadba dabayshii ka xog badata waxayna mar walba kabaqaad u noqdaan qofba qofku ka dabeecad ku leeyahay iyagoo raba inay noloshooda hoggaanka u qabtaan maadaama iyagu ay gaareen salka ugu hooseysa ee daciifnimada marka sidaas darteed qof ahaan waxaa ku fiican inaad ahaato qof isagu leh talo iyo hoggaan u gaar ah oo naftiisa ku maamulo si aadan ugu calaacalin kuwa ku ceelay halka aad kaaga dhowaan lahayd dadka dabeecadda wanaagsan ee aan mar walba kuu amrayn sida addoon uu leeyahay oo kale sidoo kalena kuula dhaqmaya si bini'aadannimo iyo naxariiso ku jirto dadkaas ayaana mudan in talada loo dhiibto lagana dambeeyo halka aad daba socon lahayd ama aad taabic u noqon lahayd qof aan ku turaynin kama dhigna halkan inaan eedaynan dadkaas inta badan dabeecaddooda adag tahay haddii inay dabeecad xumada ku darsan kibir iyo isla weyni taas ayaan ah mid ugu xun laakiin qofba waa sidii allah u siiyey dabeecadda haddii ahaan lahayd mid qabow iyo sidoo kale mid kulul intaba diinteena islaamkuna mar walba waxay nafaraysaa inaan noqonno dad dabeecad wanaagsan dadka u jilicsan sidoo kalena u naxariista mar walba laga soo agdhowaado dadkuna aysan ka cararin mar walba ka muuqato naxariis iyo deganaan ay u hayaan dadka kale sidoo kalena ixtiraama dadka ka aragtida duwan kama dhigno inaad mar walba tahay qof aan baraarug lahayn ee iska habi ah waa inaad sidoo kale tahay qof ku adag diintiisa iyo qiyamkiisa insaanimo sidoo kalena dadka ixtiraama ee aan indhaha faraha ka gelin mawduucan intaan ayuu ku egyahay waa anigoo ah cabdixafiid bashiir wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh